wararkii ugu dambeeyay dunida warbixinta Cabdulaan Saada aan ku bilaabo dabada isla markaana aan ugu horeysiye iyadoo oo dadka Soomaaliyeed qaar kamid ah mar walba ku eedeeyaan mucaaradka dalka in ay ciidamada iyo dawladnimada lid ku yihiin ama qaarkood markaas kala saari kari waayaan siyaasadda la isku hayo iyo waxyaalaha kale dabcan iska caadiga in la isku mucaarado isla markaana waxyaalaha waaweyn ka mid dhisidda ciidamada arrimahaas ay siyaasadeeyaan ama ay siyaasad dhexgeliyaan ayagoo markaas cid ku xumeynaya waana la qaba arintaas Soomaalida kaliya gaar kuma noqon markan waxaana jira in 500 oo qof oo dabad wareega oo dalkaasi Iran dawladda ka jirta wadaadada ka soo horjeeda ay warqad u gudbiyeen madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo ay ka codsanayaan in ay ku sii hayaan liiska argagixisada ee FTO loo yaqaan the Foreign Terror Organization baloo yaqaan ama Foreign Terrorist Organizations ayaa si loo yaqaan waa policy waaxda arrimaha dibadda dalka Mareykanka ay leedahay oo liis ay u sameeyay way dadka shisheeyaha ama ururada argagixisada shisheeyaha in lagu sii hayo ciidamada ilaalada kacaanka Islamic Revolutionary Guards Corps loo yaqaan ama waxa kale loo yaqaan Quds warqadan oo 500 qof ee mucaaradka ah ay qoreen ayaa lagu yiri anagu waxaan nahay dadkii reer Iran ee doonayay isbedelka sidoo waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha dalka Mareykanka anagoo ah dad khibradlayaal siyaasiyiin iyo aqoon-yahana in aan laga saarin liiskaasi kooxaha ciidamada kala duwan ee labada ah iyo waliba ay marka qaarkood isku mid ka bal waxa kale oo la sheegay in ay ciidamadaasi ay yihiin bal laf dhabarta ay ku dagaalamaan talisku isla markaana uu ah ayaa leeyahay awoodda ugu badan toddobaadkii hore ayaa taliyaha ciidamada kala duwan dalka Mareykanka General Mark Milley waxa uu ka sheegay shirka odayaasha aqalka sare ee dalkaasi in aysan doonaynin in ay liiska ka saaraan Quds taasoo ka dhigan ayaa leeyahay mid sii daahinaysa heshiiska JCPOA madaxweynaha dalkaasi ayaa mar kale wuxuu asaguna sheegay inuu aaminsan yahay in ciidankaasi yihiin argagixiso si kastaba ha noqotee arintan ayaa waxa ay dhalisay in dad badan ay ka caroodaan ayagoo arkay dad muwaadiniin oo ciidanka dalka ka dalbanaya dal shisheeye in lagu hayo liis argagixiso waxayna ku tilmaameen taas inay tahay dalkaasi dadkaasi dib u soo noqdaan in la shaqo